lagu urursado maaragtay tibinimadooda ama maaragtay waxtar la'aantooda uu kolka horeba in Cumar ku urursado oonan hadlayn oonan wax goynayn oonan maskaxdooda waxa la kaliya la baraa iskuulka ay ka soo baxeen waa iskuulka la yiraahdo hooyo aaba السلام عليكم مدالي ميغيل مانديلا iyo Mufimoga markala la firo gaban waxaan ka hadlayaa khilaafkan u dhaxeeya Somaliland iyo Djibouti war hooy ka joog dadkii garta goynayay baan nahay dad aanan iskuulka diblomaasiyadda iyo siyaasadda aanan dhigan oo Ismaaciil Cumar uu meesha ku urursaday ayaa markasta maaragtay Djibouti khilaaf soo hooya marka waxaan leenahay war ka jooga war hadii kala dhaxgallo ninba sida la hadeer anigu bal hadalkiisa xigto haydi kala dhaxgallo dadkan meesha ka hadlaya dad siyaasad u bisil oo iskuulka diblomaasiyadda ama luqadda diblomaasiyadda yaqaan maaha waa dad lagu urursado maaragtay tibinimadooda ama maaragtay waxtar la'aantooda uu kolka horeba in Cumar ku urursado oonan hadlayn oonan wax goynayn oonan maskaxdooda waxa la kaliya la baraa iskuulka ay ka soo baxeen waa iskuulka la yiraahdo hooyo aaba iyo khadra aaba iyo hooyo khadra iyo aaba Ismaaciil intaas la baray dad inta la baray de Djibouti dhexdeeda ay ka shaqeyn karaan ay ku fiican yihiin laakiin kuma fiicna in maaragtay ay ka hadlaan sagxada diblomaasiyadda iyagoo waxay ay baran miyaa lagu qasbay ma dhici karaysadii marka waxaan ogeyn Muqdisho safiirkii uu geeyay khilaafkii uu gaarsiiyay ummadda Soomaaliyeed iyo maxalada ama dawladda Soomaaliya Djibouti uu dhaxkeliyay iyaan ogeyn waxaan arkaynaa kani imika ka hadlay Boorame ee Hargeysa ka hadlay yiri maaragtay arcaartay safiirku hadli kara oo wixii maaragtay diblomaasiyad luqadda diblomaasiyadda isagoo isticmaalaya oo ka baxayn laakiin inuu hanjabo isagoo maaragtay safiira de xaq uma leh waxa weey kolku gurigiisa yimaado ee uu soo laamo ayuu hanjabi lahaa marka waxa lay walaalka magtana maxaa la dhahaa markhaatigana ku fur magtana la bixi arintaasi waxa weeyaan waa arintii maaragtay mutaxashisnimada ku dhisnayd aanan ku dhisnayn diblomaasiyad iyo luqadda diblomaasiyadda wuxuu ku hadlay kafaliye marka waxa weeyaan markaad wadan la hadlaysi adoo waliba gurigoogi joogo sidee loola hadlaa de waxa loola hadlaa maaragtay maxaan ku dhahaa luqadda diblomaasiyadda lagu hadlaa laakiin inaad maaragtay hadal mutaxashisnimo ama maaragtay hadal aan meesha la ekeyn la soo fariisatay TV ma aha haddaad gurigaaga joogtina de waa hadli kartaa saa doontaad u hadli kartaa laakiin adoo Hargeysa dhex joogo oo marti ku Hargeysa oo maaragtay lagu maaragtay halka marti ku ah in aad u hanjabtay qof muwaadina oo reer Soomaaliland oo danaha Soomaaliland ka hadlay ma waxaad moodaysay mucaaradka Soomaaliland mucaaradkii Djibouti maxaan ku dhaayay aanan xaq iyo xuquuq wadanka aan ku lahayn aad maaragtay ku fardaynaysan uu nin xiray Ismaaciil Cumar sharciga ka xidhateen awoodii ka xidhateen dhaqaalihii ka xidhateen idaacadihii ka xidhateen shicibkii ka xidhateen maaragtay maxaabista ka dhigteen baad moodayseen war hooy sida ma hadii war ka jooga war luqadda diblomaasiyadda barta safirada Djibouti dibadda joogi inay hadlaanba ma aha anu intaasaan igu soo daray inay hadlaanba ma aha laano khilaaf hor lay keenayaan khilaaf hor leh oo loo baahnayn oo maaragtay wadankuna u baahnayn ummaduhuna ay u baahnayn ummadaha shacabka ee wada nool ay u baahnayn bay keenayaan war waxaan ilaahay safirada dibadda joogi war hanala soo xiriiraan markay hadlayaan Ismaaciil Cumar kulli isaga waxaan u sheegay oo baray in maaragtay diblomaasiyad maxaa la dhahaa diblomaasiyad xumada isaga baray oo ku qaatay waa wuxuu ku xushay ee uu ku qaato waa waxaas weeyaan wasiiradu waa nooca waanigi sheegay maalin dhow mid baa yiri sidoo meesha soo fariisto yiri kaoban kaga dhignay ma mucaaradki kaoban kaga dhignay ma waxa la yiri bal ka hadal foodkii waa kaas waan boobnay saxaradeeni waa ka gacantan ku haynaa natiijadiina waan haynaa ka hadal bal bulshada bal u sheeg wax kaoban kaga dhignay ma buu yiri marka sidaas oo kale weeyano
كأريمها دبده هدوه الله وادي عاركي لغة الدبلوماسية ده برا لليه كسفير كي هدوه الله لغة الدبلوماسية ده برا لليه إن ودي جوجا مقدشة كمقدشة جوجا كاسومالي لين جوجا إن كاني أريمها دبده كينيا مالتي دويد لها الله ورك كجوجا ومدد كرير جبوتي ومتحششية دad ka reer Djibouti eenan maaragtay iska seexday ee qama kaafkii seexday kuwa la hadla afarta qof ee meesha ku haysatiin la hadla laakiin dawladaha jaarka ha ku tumanina shuruucda caalamiga ha ku tumanina luqadda diblomaasiyadda ha ku tumanina ka jooga marka intaasan leeyahay Soomaaliland inay xal qaado waxa weeyaan kolka horeba maxaan ku dhaayay kuwa baasaboorada Djibouti sita madaxweyne ka dhigata iyo maxaan ku dhahay kolka horeba dhaqaale gubaan maxaan ku dhahay oo liiska kiin aamusinayay hesha aaba meesha kolka horeba waxba khaldana laakiin imika wixii siyaasad bay gashay Faisal Cali Waraab xaq buu leeyahay dadka mucaaradka ee Soomaaliland ee xisbiyada mucaaradka oo ay doonaan baahadana waa dad xaq leh oo xuquuq leh waa dad wadanka kula maaragtay sharaf iyo karaamad waa dad ka qayb gala masayrka Soomaaliland iyo meesha ay ku dambeynayso waa dad ka qayb gala dhaqaalaha iyo deynta ay qaadanayaan waa dad ka qayb gala maaragtay qorsheynta iyo wadanka xagga uu socdo waa dad ka qayb galo oo lagala tashado oo laga talageliyo wixii dhaco ma aha dadkan maxaan ku dhahay lagu tilmaamayo markay mucaaradka Djibouti ay noqoto waxa weeye kuwaas iyagu waa qambaar wuxuu ka qaatay mooyane waxna ma qaadan kara wadi arkay qambaar baa laga dhigay kuwa Djibouti waxa weeyaan iyagu ha warwareegaan waaqdaawna ku hayaan maaha Soomaaliland ee mucaaradkaygu sida hamoodina ka jooga mustaqbalka Soomaaliland bay ka taliyaan shirarka waaweyn caalamka ka qayb galaan ka dhaqaalaha lagu kala saxeexanay ilaano madaxweyne bari buu noqonayaa Faisal Cali Waraab musabbixina madaxweyne u yahay waa sax ma waxaad moodaysiin kan yiri maaragtay waxaan EMB ahayn RBB ninkaan ahayn walaalkay maaha kan yiraad moodaysiin may sama hade baasho waxa weeyaan dadka mucaaradka iyo dadka maxaafidkaaba musabbixi madaxweyne u yahay bal waa kaas ka hadla ar haduu niyaha ka hadlo Faisal Cali Waraab cambaarey haduu niyahayba wallahi inuu orod kaga bixi magaalada umada reer Soomaaliland baa ku kiciba musabixiyo waxa weeyaan in wadada laga leexin meesha yar nabad baad ku haysiin baanigii lahaa nabad daana waa inagu hambalyeynayna maxaan ku dhaayay laakiin faraha inay ka bixin baasho umadaada maaragtay la tasho la shaqee anagu Djibouti hadaan ahay cadowga horta cadownimada anagu ma oranayo oo cadowga dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca maaragtay cadowga la isku noqon karaa deked baad meesha ka abaabudeen muxuu ahaa berbera way dhici kartaa in dekadaas iyo cara ka kacday iyo wax noocaasa laakiin wax kale oo umada u dhaxeeyo oo labada umadood maaragtay u dhaxeeyo isku luqada ah oo cadaawada oon ognahay ma jirto cadowgu laakiin cadow dhaqaalo noqon karaayo Ismaaciil Umar waa dadkiisa ku cadaawadeysanay dhaqaalaha ee dhaqaaliyo dhan intuu ka boobay cadow weeyaan annaga waa Ismaaciil Umar baa cadow nugu ah haddaad inagu Djibouti cadow ku sheegaysiin annaga Ismaaciil Umar baa cadow nugu ah gaajo nugu xukumayo koran laan biyo la'aan dhaqaale la xumo caafimaad la'aan ma waxaad arkaysi Djibouti oo shalay dadku kulayl ay ka qaxayeen ay guurayeen ay basaska wada korayeen oo maantana roobkii yaray ay xaqii wixii sidii looga faa'iideysanay la garan waayay oo uu soo galay caasimadii ilaa ganacsigii maqaayadihii dekadihii iskuuladii dadkii meebelkii yaray haysteen wixii yaray ay guriyihii yaray dhisteen wadooyinkii bal ka waran dadkii oo bal ka warama annaga waa cadowga baan haysto sidaa noo galay maaragtay aanan dhinacba nooga roonayn waxba horumar u soo wadin wadanka sida wax loo sheegay ay la fududahay maaragtay sida wax loo fuliyo amba loo sameeyay aan fahmaynin dad khibrad leh oo competence la'aan u dhiibaynin shaqada kuwa mercenaire oo difaaco oo cay hadalkooguna waa cay ka mucaaradka ka maaragtay hadii nin wasiir hadlo ama nin xukuumadda ka tirsan ama nin wadigii ogaa wasiir baa yiri wuxuu yiri meesha dadka lagu xidhay gabood leeyahay waa Sharaton buu yiri waa Sharaton buu ku tilmaamay ayaa geliya Sharaton aan noqotay waxa weeyaan ka hadal ma yaqaan af Soomaaliba ma yaqaanaba waa mutaxashhash dadka ka qosliyo qaata malaha oo dadka ka qosliya maaragtay hadallada murti aan lahayn yar la iskaga qoslay bila macniga ah ayuu malaha qaata ninkaas u xusha marka waxa weeyaan wasiirkayga hadli waa nuuca safiirka iyagu waa nuuca ka arrimaha dibadda waa nuuca ra'iisul wasaaraha iyagu xisbigeena hadaanad ahayn
haddaan erbebeeda ahayn walaalkay hadduu erbebeeda ka weecdo xisbiga mucaaradka tago walaalkay ma aha buu leeyahay waa ra'iisul wasaare la leeyahay inuu iscasilee fadeexadaas inuu iscasilee iyo xaq u lahaa laanna waxa weeyaan qofku markuu mas'uul hayo wuxuu u yahay ubadkayga maanta ka dabeecadda xunne ka dabeecadda fiican leh ka waxbarashada ku fiican ka waxbarashada ku liito ka maaragtay qaylada badanne ka i dhegaysto ka aan i dhegaysan ilmahayga anaa intaba aabba u ah anaana mas-uuliyadooda leh inaan intaba isku wado oon u samro oon wadwado iyaan xaq u leh kolkuu leeyahay qofka mucaaradka naga tagay xaq maaragtay xaq naguma leh walaalkay ma aha uu ra'iisul wasaarena waddan u yahay dee isma qabanayso ma yaqaanaan luqadda diblomaasiyadda mana yaqaanaan luqadda siyaasadda ma yaqaanaan balaaqadda maaragtay bini'aadanka lagula hadlo balaaqadoodu waxa weeyaan madaxweyneheenna weeyaan iyo lase marwadeenna koobaad intaa weyn balaaqadoodu siyaasadooduna waa intaa Soomaaliland inay xaal qaado anaa bixinayo xaalka anaa bixinayo raalli noqda Faysal Cali Waraabe inkastuu isaguba nin iska siyaasadiisu aynan sal lahayn oo kolba dhinacun kol uu hawiye caayo kol uu daarood caayo kol uu Jabuuti caayo kol uu cid walba caayo kol uu madaxweyne waan haynaa cajaladiisa isagaba marka Faysal Cali Waraabana laakiin kolkuu leeyahay masayrka Soomaaliland ka hadlayo uu ku saxan yahay isagaa xaq u leh isagaa maamulo isagaa maaragtay looga dambeeyaa waxa weeyaan berri buu noqon karaa mustaqbalka madaxweynaha bal ka waran sidaad ula hadashiin haddii uu berri ninkaasi shacabka reer Soomaaliland berri codka siiyaan ma sidaasaan dadka reer Soomaaliland cadaawad noogu gelinaysiin may ka daaya baasho halkaa inayna la gelin wixii arrimaha dibadda nagala tashada annaka oo dadka mucaaradka ama dadka garanaya balaaqada iyo siyaasadda kala tashada maaragtay sida maaha komediyaanimayna la fariista maaha saxada siyaasadda dadku adduunyadu waa la ilbaxay luqadda diblomaasiyadda ciyaara aad baan inii salaamaya Djibouti ha noolaato shacabkeegu ha noolaadaan reer Soomaaliland ha noolaadaan nabad bay haystaan nabadaana ha ku maaragtay Allah u barakeeyo inaguna ummadda Soomaaliyeed iyo Soomaalinimada iyo derisnimada noo ilaaliya waan wada guuleysano maanta haddii ay Muqdisho nabad noo ahaan lahayd waxaan ilaahay Hargeysa maanta haddaan tago dee nabad baan adeeyada ku joogayo wax dhibaato waa wadan Soomaaliyeed ama dhul Soomaaliyeed laakiin Muqdisho muuska iyo tamashlaynta iyo maaragtay caanaha iyo xamar caday halkaasaan maanta tagi lahaa oo u xagaa bixi lahaa oo ilaahay igu og yahay oon aad iyo aadna u jeclaa laakiin waxaan waa ka caqabadaan hor yaala magafayaal ayaa meel walba haysto qabaa'il isku dir dagaal iyo wadankii iyo dadkii ku burburiyeen maanta diyaaradan ka raaca Djibouti ama tareenkan ka raaca ama baabuurkan ka raaco waxaan codsanayaa in tareen degdeg la dhiso Muqdisho ilaa Kenya isku xidhaano sida Ethiopia tareen loogu dhisay hadduu Ismaaciil Cumar wax qaban lahaa Muqdisho ilaa wuxuu isku xidhi lahaa Islii waxaan u jeedaa Djibouti ilaa Islii ayuu isku xidhi lahaa Eritrea wada fiican buu sameyn lahaa uu isku xidhi lahaa gobolka hadduu aabihii gobolka yahay laakiin waxa weeyaan aabihii qoysku noqday aabihii maaragtay wuxuu noqday qoyska aabihii reer Djibouti maaha aabihii gobolka maaha uu siyaasad xun yahay iska dulqaata waa ka dadka reer Djibouti ba xaalna siinaya ay iyo aflagaadi iyo hanjabaad iyo buuq iyo baqbaqna nagama geyno waa ka dadkaas ka dulmana daadka iyo cadceeda iyo kooraan la'aanta iyo dhibaatadu ay haysataan nahay afarta daydayd 200 daydayd noo soo diraysiin ma dhibaatada baad noogu diraysiin war ka joogo naga daaya isdajiya xaal qaata waa ka baashu inay nigu kicin aad iyo aad baa inii salaamaya Faysal Cali Waraabe hadalkiisa in loo jawaabo ma hayn hadduu khaldamana waxa weeyaan Soomaaliland xaq buu ku leeyahay hadduu saxan yahayna waxa weeyaan xaq buu ku leeyahay marka barta inaguna dadka mucaaradku xaq ay leeyihiin baan leeyahay dadka taliska Djibouti xukuumadda Djibouti waxaan sheegaynaa barta qofka mucaaradka ah ee wax sheegaya ee wadankiisa wax la rabo ee wax toosinayay xaq uu leeyahay barta haddaan maanta Ismaaciil Cumar joogo nin wax iga sheegayo nin caayayo meeshaan ku dhashay nin ka hadlayo islaantii dhashay nin ka hadlayo waxaan aqaan nin ka hadlayo ma jirto hadda Ismaaciil Cumar baan diiday ay iyo dhagax iyo rafadaxad iyo waxaan rabi lahayn iyo intaasay garanayaan ma garanayaan inay difaacaan madaxweynaha ay maaragtay ay balaaqadiis ay ku difaacaan maaragtay siyaasadda wixii uu qabtay baa la ranjeeyay maaragtay tariiq yar oo cad baa lagu shidaayo dadka waa la tusay waxa la dhahaa waxaas uu qabtay laakiin ay iyo anshi xumo iyo la soo galaan Facebook iyo midiyaaga anshi xumo iyo ay way la soo galaan kuwa Ismaaciil Cumar difaaciya
حكومة دي سنة واحد لا سوق شاد ما يقنن لقد الدبلوماسية ده خلاف يوضع ما دي جار كي نقوة الديران نوع عصبة نوتلية نقرر على النقطة الصومالي ليني وين إسكها جاجي أدبنا إني سلام يا ومد الصومالية ومد جيسك أفريقيا أنفر صومالي عرب عيد والبا لما أنتوا إني سلام يا سلام عليكم.